laba saddex. maalinta dhalinyarada adduunka ayaa dhalinyarada magaalada Berbera ay ku xuseen beachka Batalaale xuska maalintani waxa soo abaabulay hay'adda UN Habitat waxaana dhalinyaradu beachkaasi ay ku soo bandhigeen ciyaaro kala duwan isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saaxil Shaafici Jaamacad ayaa ka warramay maalintan iyo qiimaheeda inaan ku dabaaldegno anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada gobolka Saaxil ana isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Saaxil inaan ku dabaaldegno badda ayaa farxad noo ah waxaan leenahay waa maalin farxadeed waxaan leenahay dhalinyarada aduunka iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo dhalinyarada gobolka Saaxilba hambalyo caasha iyo saraakiil kale oo ka socday hay'adda UN Habitat waxa ay sheegeen in ka badan 200 oo dhalinyarada reer Berbera ah in ay u wadaan tababaro la xiriira xirfadaha shaqo abuurka Shaafici inoo sheegayay maanta waa maalintii dhalinyarada adduunka inaguna waxaynu ognahay hadaynu nahay dhalinyarada ama hadaa tihiinba dhalinyarada reer Berbera inay waxa ka mid yihiin dhalinyarada adduunka ka mid yihiin maanta markaas waxaan jecelnahay horta inaan hambalyo idin soo dirno guud ahaan dhalinyarada islaamka gaar ahaan maxay ahaatay dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somaliland iyo dhalinyarada reer Berbera sida uu sheegay maxay tahay Shaafici halkan tababar baa ka socda tababarkaas oo loo qabtay in ka badan 200 oo maxay tahay dhalinyaro ah oo reer Berbera ah waxay baranayaan life skill training wax la yiraahdo ama xirfad lagu barayo noloshooda khusaysa dhamaantood waxaan leenahay hambalyo dhalinyarada adduunka anigoo la jooga dhalinyarada Berbera waan ku faraxsanahay maadaama ay bij qurux badan ay haastaan dhalinyaradana ay yahaan laf dhabarta bulshada aad iyo aad bay ay bulshada wax uga bedeli karaan life skills training ayaa noo socda sida caasho ay noo sheegtay 200 oo qof oo ka badan ayaa xirfadaha iyo sida shaqo abuurka ay u sameeysan lahaayeen aan bari hayna marka waan ku faraxsanahay sida mowduuca sanadka uu leeyahay safe space for youth kamida dhalinyarada